الله وبركاته وولاashii Malka Xasan Maxamed ninkan aad u jeedaan wuxuu ahaan jiray hilible maalin kasta xoolaha qala maalin maalmaha kamid ah asagoo soo socdo oo gaarigiisa saaran ayuu wuxuu arkay maamo jidka dhex taalo wuxuu isku dayay inuu caawiyo balse asagiyo maamadii caawis dhahaaya ayaa waxa ku imaadeen dadkii oo ku dhahay nin adiga dishay qoftaan asagana wuxuu ku dhahay aniga ma dilin booliska ayaa loogu wacay booliskii ay imaadeen markay booliskii imaadeen xabsiga ayaa loo taxaabay ninkii markii la waday xabsiga la geeyay bacdu wiig kadib ninkii waa la xukumay oo dil toogasho ayaa lagu xukumay markaas wuxuu ku dhahay dadoo i dhageysta aniga ma dilin qofta adiga soo akaxayseen laakiin i dhageysta maalin maalmaha kamid ah waxaan ahaan jiray nin doonla ah doontiidas anigoo saaran ayaa waxaan arkay gabar aad u qurux badan ayaa soo raacday doonteedii markay soo raacday ayaa waxaan doonay inaan guursado nigay gurigaaga aan ku guursaday ayaan dhahay laakiin way iga diiday inaan guursano isla mar kale ayaa hadana gabadhii waxay soo raacday doonteeda ayadoo ilmo yar wadato waxaan ka doonaa nafteedii oo waxay igu tiri lagama yaabo midaas inay dhacdo anna waxaan ku dhahay hadaa i diidid ogow ilmaha yarka ayna biyaha ku qarqin doono oo ku dili doono ayadii waxay tiri dil hadaa rabtid laakiin lagama yaabo inaad jirkeyga taawatid meeshii yara ilmihii yara sidoo u qeylinay uu cabaaday ayuu hal mar qeyladii joojiyay isla meeshaas ayuu ku geeriyooday cunugii yara markaas wuxuu dhahay aniga isla ayada ayaan ku soo jeestay meeshaas ayaan ayadana kaga taqalusay waxa xaqiiqo ah in qofkii qof dila la dilaayo xaqiiqada midaas waaye anigana ma dilin gabadhaad iga soo akaxayseen ee waxaan dilay labadaas qofood oo maanta ciqaabtooda aan maraa ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين